Ma jeclaan lahayd inaad yeelato awood dheeraad ah, kalsooni dhammaystiran, iyo inaad hadafkaaga si fudud ku gaarto? Dhammaanteena waan jecel lahay midaas, balse shayga kaliya naga caawin karo in aan hadafkeena iyo riyooyinkeena aan gaarno waa in aan dhisano kalsoonida nafteena. Sababtoo ah dhisidda kalsoonida naftaada waxay kuu oggolaanaysaa inaad rumaysato, aadna ku kalsoonaato naftaada iyo kartidaada, aadna aaminto awoodahaaga. haddaba sideed ku dhisan kartaa kalsooni dhammaystiran? daawadaha sharafta leh, waxaan kula wadaagi doonaa ugu horeyn waa maxay kalsoonida nafta, waa maxay sababta kalsoonida nafta nolosheena muhiim ugu tahay, 7 dabeecadood uu leeyahay qofka naftiisa kalsooni dhammaystiran ku qaba, iyo 7 calaamood oo muujinaya haddii aad isku aragto in kalsoonida naftaada ay aad u liidato, iyo qodobka ugu muhiimsan mawduuceena waxaan kula wadaagi doonaa 13 talooyin oo aad ku dhisan karto kalsoonida naftaada. si aad wax badan aga faa'iidaysato mawduucan kalsoonida naftaadana si dhammaystiran ugu dhisato, nala sii joog ilaa dhamaadka muuqaalka. haddana ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. daawadaha sharafta leh, dhisidda kalsoonida nafta ma ahan wax aad u adag sida aad u malaynayso. waa maxay kalsoonida nafta? kalsoonidu waxaa inta badan lagu qeexaa waa dareen hubanti ah ama hubaal qof ama shay. kalsoonida nafta waa aaminsanaanta naftaada iyo kartidaada. isku kalsoonaanta iyo kalsoonida nafta ay in badan dadka isku khaldaan. isku kalsoonaanta waxaa loola jeedaa inaad qadarinayso oo aad qiimayso naftaada, kalsoonidaada ayaad horumarisaa oo isbedesha, taas oo sabab u tahay khibradahaaga nolosha iyo la dhaqanka dadka kale. kalsoonida nafta waxaa loola jeedaa waa aaminaada naftaada iyo kartidaada. tani way isbedeli kartaa iyadoo ku xiran xaaladda. waa iska caadi inaad dareento kalsooni xaaladaha qaarkood. waa maxay sababta kalsoonida nafta ay nolosheena muhiim ugu tahay? kalsoonida nafta ma ahan keliya inaad dareento fiicnaan ama aad xiran tahay labis qurxoon ama aad leedahay jir soo jiidasho leh. kalsoonida dhabta ah waxay ku saabsan tahay sidaad naftaada u xakamayso maalin kasta. markaad kalsooni ku qabtid naftaada waxaad dareemaysaa xasilooni dhammaystiran, adigoo aan dan kaa gelin waxa hareerahaaga ka dhacaya. kalsooni lahaanshaha waxay ku siin kartaa faa'iidooyin badan. midda koowaad, doorashooyin nololeed oo caafimaad qaba. midda labaad, guusha goobta shaqada. midda saddexaad, isdhexgal bulsho ee togan. midda afaraad, adkaysi lahaansho. midda shanaad, farxad joogto ah. midda lixaad, go'aan qaadashada wanaagsan. midda ugu dambaysa, midda toddobaad, cabsida iyo welwelka oo kaa yaraada. kalsoonida nafta ayaa kaa caawin karta inaad ku noolaato noloshaada ugu fiican. kalsoonida nafta waa aasaaska natiijooyin badan, laga bilaabo caafimaadkaaga, xirfadahaaga, ilaa cilaaqaadkaaga dadka kale aad la leedahay. qaybta ugu fiican ayaa ah kalsoonida nafta inaad si fudud ku dhisan karto haddii aad geesinimo muujiso. 7 dabeecadood oo uu leeyahay qofka naftiisa kalsooni dhammaystiran ku qaba. dabeecadda koowaad, waxay qaataan khatarta. dadka kalsoonida leh kama baqaan khataraha. waxay og yihiin in halistu ay cashar ka mid tahay nolosha. waxay isku dayaan mar walba inay wax cusub tijaabiyaan, xitaa haddii ay og yihiin inay ku guuldaraysan karaan waxaas. dabeecadda labaad, way dadiilo qabaan. dadka isku kalsoon waxay arrin walba ka eegaan dhanka wanaagsan, xitaa hadduu fashal imaado ma baqaan. waa dad adag oo fashalka u arka qayb ka mid ah nolosha. guuldarooyinka soo gaara waxay u arkaan fursad ay wax cusub ku sii bartaan oo ay ku sii wanaagsanaadaan. dabeecadda saddexaad, way aqbalaan bogaadin. marka qof yiraahdo shaqo fiican ayaad qabatay, qofka isku kalsoon si fudud ayuu ku dhahaa mahadsanid, halka uu faani lahaa ama isqaadqaadi lahaa. waxay garanayaan qiimahooda. dabeecadda afaraad, way go'aan wanaagsan yihiin. dadka kalsoonida leh way u fudud tahay inay go'aan gaaraan. waxay ku kalsoon yihiin dareenkooda oo waqti kuma lumiyaan inay ka warwaran wax dadka kan u malayn karaan. dabeecadda shanaad, waxay dejiyaan xuduud. dadka kalsoonida leh way og yihiin xilliga ay haa dhahayaan iyo xilliga ay maya dhahayaan, yacni xilliga ay wax ogolaanayaan iyo xilliga ay wax diidayaan. waana dad lagu ixtiraamo xadkooda, mana ka baqaan inay la xiriiraan dadka kale. dabeecadda lixaad, ma ahan kuwa iska yeelyeel badan. dadka isku kalsoon aad ayay ugu raaxaystaan inay noqdaan kuwa ay iyaga yihiin, mana dareemaan baahid ay u qabaan inay iska dhigaan qof aanay ahayn. dabeecadda ugu dambaysa, dabeecadda toddobaad, way dhegaystaan in badan halka ay hadli lahaayeen. waxaa la yaab leh, dadka isku kalsoon waxay inta badan dhegaystaan inta badan ay hadli lahaayeen. waxay ku ammaanan yihiin, waa dad degan oo aanay ahayn dad qaylo badan. 7 calaamood oo muujinaya haddii aad isku aragto in kalsoonida naftaada aad u liidato. calaamadda koowaad, ka warwarka ra'yiga dadka kale. haddii aad isku aragto inaad si joogto ah u rayaaban tahay waxa ay dadka kale ka qabaan adiga iyo arrimahaaga, waxay noqon kartaa calaamad muujinayso inay kalsoonidaada aad u liidato. calaamadda labaad, dareen warwar ah. waa caadi mararka qaar in dareen warwar la dareemo, laakiin haddii aad si joogto ah u walwalsan tahay gaar ahaan waxyaalaha maalinlaha ah, waxay muujinaysaa kalsoonidaada inay hoosayso. calaamadda saddexaad, ka fogaanshaha eegmada dadka. inaad qofka indhaha ka eegin inta lagu jiro wadahadalka waxay la micno tahay inaadan naftaada hubin oo aadan ku kalsooneen. calaamadda afaraad, ka xishoodka caqabadaha. haddii aad u janjeerto inaad dib u laabato marka ay arrimuhu adkaadaan ama aad la kulanto caqabad, waxay noqon kartaa inaadan ku kalsooneen awoodahaaga inaad wax ku qabato. calaamadda shanaad, iska hadal xun. u fiirso sida aad ula hadlayso naftaada. haddii aad inta badan sheegto waxyaabo xun naftaada ku dhahdo sida
sida ma awoodi ama ma fiicni waxaad joogtaa xilli aad wax ka qaban lahayd kalsoonidaada. Calaamada lixaad ka fikirka badan, ku luminta waqti badan qaadashada go'aanka ama ka walwalida mustaqbalka waxay noqon kartaa calaamad kalsooni daro. Calaamada ugu dambaysa, calaamada toddobaad, ka cabsashada guuldarada. qof kasta waa uu ka baqaa inuu fashilmo mararka qaarkood, laakiin haddii cabsidu aad u xoogan tahay oo ay kaa joojinayso inaad wax cusub tijaabiso, waxay u badan tahay in kalsoonida naftaada ay aad u hooseyso. 23 talooyin oo ka caawinayso inaad ku dhisato kalsoonida naftaada. Talada koowaad, ogow naftaada. qaybta ugu muhiimsan dhisidda kalsoonida nafta ayaa ah inaad daryeesho naftaada. hubi inaad hurdo kugu filan seexato, cuno dheelitiran cunayso, oo aad jirkaaga daryeesho sida jimicsi inaad samaynayso ama socod dheer aad aadayso. marka aad dareento fiicnaan jir ahaan, waxay kaa caawin kartaa inaad naftaada ku fiicnaato maskax ahaan. talada saddexaad, ilaali ballamahaaga. kobcinta kalsoonida naftaada waxay sidoo kale ku xidhnaan kartaa sida xooggan ee aad ugu adkaysanayso yoolkaaga. marka aad ballan ka qaado naftaada in aadan isdhiiweynin, la soco tani waxay ku tusinaysaa inaad isku halayn karto naftaada, taas oo ah kalsooni weyn. tallaabada saddexaad, u dhaqaaq dariiqooyin dareen wanaagsan leh. dareenka wanaagsan ee noloshaada inta badan waxay ka timaadaa dareenka wanaagsan ee maqaarkaaga. dhaqdhaqaaqa jireed waa hab fiican oo lagu kordhiyo tamartaada oo lagu hagaajiyo niyadaada. ma aha inay noqoto jimicsi buuxo, socodka badan iyo sidoo kale meel dad badan buuxaan inaad ku socoto waxay kaa caawin kartaa inaad kalsoonida naftaada ku dhisato. tallaabada afaraad, u dabaaldeg guulahaaga yaryar. guulaha yaryar aad gaarto waxay isku dari karaan in la dareemo guulo waaweyn waqti kadib. ku bilow inaad dejiso yoolal yaryar oo u dabaaldeg markaad guul yar ka gaarto. dhaqankan waxaa laga yaabaa inuu maskaxda ku abuuro wareeg celin togan oo u fiican dhisidda kalsoonida. tallaabada shanaad, daacad u noqo qayimkaaga. kalsoonida naftu way adag tahay in la helo haddii aadan dareemin in lagu xaqiijin karo sida aad ugu nooshahay noloshaada. qaado waqti aad ku ogaatid waxa muhiimka ku ah oo sameey doorashooyin la jaanqaadaya qayimkaaga. tani waxay kaa caawin kartaa inaad daacad u ahaato naftaada, waxayna kor u qaadi kartaa ixtiraamkaaga. talada lixaad, aqoonso guulahaaga. marka aad ku guulaysato yoolkaaga, keliya ha isaga gudbin ama hoos ha u dhigin sidii in aanay wax weynba ku ahayn. qaado daqiiqad si aad u aqoonsato waxa aad samaysay, wax xasuusin awoodahaaga. talada toddobaad, si wanaagsan ula hadal naftaada. waxaad tahay hogaamiyaha ugu weyn ee naftaada. mar walba sida aad naftaada ula hadasho kaalin weyn ayay ka qaadan kartaa dhisidda kalsoonida naftaada. isku day inaad isticmaasho erayo dhiirigelin leh markaad naftaada la hadlayso. bedel fikradaha xunxun sida kan ma samayn karo ku bedel waan samayn karaa waan samayn karaa. inta badan aad naftaada hogaamiso waxaad dareemi doontaa kalsooni nafeed oo dhammaystiran. talada sideedaad, isku day wax cusub. ma jiraan wax aad mar walba rabtay in aad isku daydo inaad samayso, balse aad uga fogaatay cabsida ah inaad waxaas qaban karin. isku dayga wax cusub runtii waxay kordhisaa kalsoonida naftaada. marka aad wax cusub barato waxay ku tusinaysaa inaad karti u leedahay in aad korto oo awood yeelato. xitaa haddii aadan aqoon xirfadaas cusub, waxaad naftaada siinaysaa fursad aad ku baran karto xirfadaas. talada sagaalaad, ku hareeray naftaada taageere. way sahlan tahay in aan kulansano fikradaha xunxun ee nafteena iyo dareenkeena shakiga. haddii aad arrintan isku aragto, isku day inaad waqti la qaadato dadka hareerahaaga jooga ee nolosha horumar weyn ka sameeyey. taladooda iyo khibradooda nolosha aad ka faa'iidaysato wax badan ayay kalsoonidaada caawin kartaa. talada tobanaad, u labiso si aad u wanaagsan. mararka qaarkood muuqaalkaaga dibadda wuxuu saameyn ku yeelan karaa sida aad dareemayso gudahaaga. marka aad si wacan u labisato waxaa laga yaabaa inaad dareento wanaag. sidoo kale haddii aad u baahan tahay kor u qaadada kalsoonida naftaada, isku day inaad xirato dharkaa dhigaya inaad dareento raaxo iyo kalsooni. talada 11aad, caawi dadka kale. marka aad caawiso qofka kale, wanaag aad samaysay bes ma ahan, kalsoonidaada ayay kor u qaadaysaa. isku day inaad caawiso bulshada sida adigoo wax taraya, hadal wanaagsanna kula hadasho kan kaa weyn iyo midka kaa yarba. talada 12aad, ku celceli inaad dhahdo maya. ma ahan inaad wax walba ogolaato, waxaa fiican inaad xuduud leedahay oo aad tiraahdo maya markaad u baahato. waxay calaamad u noqonaysaa inaad naftaada ixtiraamtay. tani waxay micnaha noqon kartaa inaad xuduud la leedahay asxaabtaada iyo qoyskaaga ama xitaa shaqadaada. tani ma ahan in lagu yiraahdo waa inaad ahaataa mid adag, laakiin hubi inaad budnaanta siinayso naftaada marka lagu daro kuwa kale. talada ugu dambaysa, talada 13aad, ku celceli mahadnaqa iyo xaqiijinta togan. xitaa waqtiga adag, qadarinta waxaad haysato waxay kaa caawin kartaa beddelka maskaxdaada. maalintaada ku bilow hadal wanaagsan oo naftaada ku saabsan, ama xasuusi naftaada waxa ay qabatay iyo inaad qiimayso naftaada. maalin walba cusub waa inaad naftaada wax kusoo kordhisaa, naftaada ixtiraamtaa, naftaada jeclaataa. haddaad samayso intaas, kalsoonida naftaada meesha ugu saraysa ayay tegi doontaa hubaal. ugu dambeyn, haddii aad halkan nala soo gaartay aad u mahadsan tahay. haddii aad ka heshay muuqaalkan wax badan un aad ka faa'iiday, like saar si uu dad badan u gaaro. la wadaag asxaabtaada, share u dheh. intaan muuqaalkan lacin ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.